Ilwaad Elman waa gabar Soomaaliyeed oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada mudane ka hawlgalaysa gudaha magaalada Muqdisho ayaa sanadkan u sharaxan saddexda qof ee ku tartamaya ku guuleysiga abaalmarinta caalamiga ee Nobel Peace Prize. Ilwaad oo ku soo barbaatay qurbaha waxna ku soo baratay ayaa markii dambe go'aansatay inay dalkeeda hooyo dib ugu soo laabato si ay gacan uga geysato soo kabashada dalkeeda. Ilwaad ayaa dhammaadkii 1989 ku dhalatay magaalada Muqdisho. Aabaheed ayaa ahaa Elman Cali Axmed oo ahaa asaasaha hay'adda Elman ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho sanadii 1996 isaga oo ahaa shakhsi burburkii dawladdii dhexe ee dalka kadib uu istaagay in dib loo soo nooleeyo rajada ubadka Soomaaliyeed oo waqtigaa ku dayacnaa dalka qaybihiisa kala duwan isaga oo ku dhiirigelin jiray inay wax bartaan si ay mustaqbalka u noqdaan dad iskood u shaqaysta. Ilwaad ayaa u ololaysa xuquuqul insaanka inaan carruurta la askarayn, haweenka la kulma cunfiga jinsiga la xiriira iyo arrimo kale. sanadkii hore 2018 Ilwaad dadaalkeedii waxaa aqoonsaday qaramada midoobay oo u magacowday inay ka mid noqoto la taliyaasha dhanka nabadaynta ee xogayaha guud ee Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa Antonio Guterres. sidoo kalena Ilwaad waa asaasaha iyo madaxa ururo iyo xarumo ka shaqeeya nabadda kuwaas oo xafiisyo ku leh dalka iyo dibaddaba. Macadka daraasaadka nabadda ee Oslo BRIO ayaa ku dhawaaqay liiska ugu dambeeya ee dadka sharaxan, waxaana macadku uu sheegay inay Ilwaad ku guuleysan karto abaalmarintan iyadoo galaysa qaybta da'yarta nabadda u ololaysa. agaasimaha macadka daraasaadka Oslo Henrik Ordal ayaa sheegay in 3 qof ay ku tartamayaan abaalmarintan, waxaana Ilwaad ku weheliya tartanka geyfana Liibiyaan ah oo la yiraahdo Haajir Shariif iyo xildhibaanka ugu da'yar baarlamaanka Hong Kong oo la yiraahdo Nathan Law. haddii ay Ilwaad ku guuleysato abaalmarintan waxay noqonaysaa guul weyn oo u soo hoyatay bulshada Soomaaliyeed iyadoo noqonaysa qofkii ugu horeeyay ee loo xusho abaalmarintan iyadoo ka shaqeynaysa gudaha dalka Soomaaliya. Ilwaad waxaan u rajaynaynaa guul. One of the 5th worst places in the world to be a woman. I feel by being here today at the rebirth of Mogadishu, very soon we will see this place ranked as something else, perhaps the most beautiful place in the world. And then one day, perhaps I'll be able to say, I had something to do with that, even if it was little. Thank you.